الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وعشر كوبي صدونات يا كتاب كاني حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله. عدد أبواب الجنة الباب الجنة وثمانية. جنة الباب لقى وثمانية سدي وثمانية وسديد سديد داسنا وحال لوغو كلا قيبيي sida daacaadka ay kala yihiin iyo waxyaabaha rabbi loogu dhowaado subxaanahu wa tacaala. rasuulku wuxuu yihi sal alla alay wasalam, xadiis imaamu bukhaari soo saaray, fi ljannati thamaaniyatu abwaab. jannada waxay leedahay 8 albaab. waxaa ku jira baab ama albaab la yidhaahdo alrayaan, laa yadkhuluhu ila asaa'imuun. rayaan waa kii dadka cokan, dadka yacnaha dhergay, waxaana ka gala dadkii soomanaan jiray ayaa albaabkaa gala, maadaama ay soo gaajoodeen. magaciisi waxaa loo bixiyay rayaan. rayaan waa dheregta wey. abu hurayra radi allahu canhu baa wuxuu leeyahy, isaguna rasuulka wuxuu yihi sala allahu alay wasalam, qofka bixiya ee 2 shay ilaahay jidkiisa ku bixiya, maalinta qiyaamada waxaa looga yeedhi doonaa jannada albaabadeeda looga yeedhayaa. abwaab aljanna athamaaniya wey, 8 waa looga yeedhayaa. waxaa la odhan doonaa, addoonkii ilaahayow, kani waa khayr. marka haddii aad khayr baad samaysay, haddii aad ahayd dadka ahlu salaadka, albaabka salaada looga yeedhi. hadduu ahaa dadkii ahlu jihaadka, albaabkii jihaadka looga yeedhi. hadduu ahaa dadkii soomi jira, albaabka rayaanka amayaa looga yeedhi. hadduu ahaa dadkii sadaqada bixin jira, albaabka sadaqada looga yeedhi. abubakar baa marka hadlay radia allahu canhu wa ardaah. wuxuu yihi, biabi anta wa ummi ya rasuul allah, aabbahay iyo hooyaday ha lagugu furte. qaabkaa markay u dhahaan dadka carabtii, aabbahay iyo hooyaday, yacni waxa weeyaan meeshay adigu ka dhiman lahayd iyagu ha dhintaan. waa alwafaa baa la yidhaha, waa qofaad aada u jeceshahay baa cibaarada loo adeegsan karaa. biabi anta wa ummi ya rasuul allah. wuxuu yihi, maji qofkii looga yeedha, maa calaa man duciya min tilka alabwaabi daruura, fahal yudcaa axadu min tilka alabwaabi kulliha. yacni yaa rasuul allah, ma jiraa qof looga wici doono 8 albaaba? ma jiraa. abubakar waxyaabaha alhima alcaaliya loo soo qaato, marka wuxuu quudaraynayaa inuu isagu qoladaa ku biiro. rasuulkaa yihi sal alla alay slam, nacam haa, wa arjuu an takuuna minhum. waa xadiis imaamu bukhaari muslim soo saareen. waxaana rajaynayaa inaad adigu ka mid tahay qolyaha looga yeedhi doono, ayaan rajaynayaa. haddaba xadiis kaluu rasuulku ku lahaa sala allahu alay wasalam, isagana imaamu muslim iyo keyrkii soo saareen, ma jiro qof ee weysaysta oo weysada si fiican u weysaysta. yacni ma aha inaad meelo aan loogu talagelin sii gaadhsiinayso, laakiin intii loogu talagalay baad dhaqaysaa ood si fiican u weysaysan ood hubinaysaa. kadibna yidhaahdaa, ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu rasuuluh. ilaa hadduu jiro qofkaasi, albaabada jannada ee 8 baa loo furayaa, kuu rabuuna ka gelayaa rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam. dadka ahlu jannadihii way ku kala tagsan yihiin darajooyinka jannada. jannada walikullin darajaatu mima camiluu, darajooyinka jannadu way kala duwan yihiin. waxaana ugu sareysa alfirdows alaclaa. cibaadad ibnu saamit xadiid uu rasuulka ka qaaday, imaamu bukhaari iyo keyrkiina soo saareen, ayaa wuxuu lahaa, fi ljannati 100 daraja. jannadu waxay leedahay 100 darajo ayay leedahay. labadii darajaba waxaa u dhexeeya inta samada iyo ardada u dhaxaysa, dhulka iyo cirka inta u dhaxaysa in la eg baa 2 darajo kasta u dhaxaysa. alfirdows alaclaa waa darajada ugu sareysa. haddaad weydiisanaysaan rabbi, waxaad weydiisataan alfirdows weydiista, fa inahu awsatu ljannati wa acla aljanna. waa midda ugu sare, awsadka bimacnaa aclaa baa la yidhaha, waa midka ugu sareysa waa iyada. waxaa kasii sareeya carshu raxmaanka. halkaasa waxaa kasoo burqada buu rasuulku sala allahu alay wasalam, alanhaar, webiyaal baa halkaa ka burqanaya. daraja oo waxaa jirta jannada ku jirta oo aclaa daraja, meesha ugu sareysa ah.
halkaa darajana hal qof bay u suubataa in ilaahay subxaanahu watacaala ku marti qaado, waana nabiyuna muxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam. alwasiila ayaa la yidhaahdaayo rasuulkaa yidhi sala allahu alay wasalam, idaa samictum lmuadin, haddaad maqashaan muadinka qofka aadaamaya, markaad maqashaan faquluu mithla maa yaquulu lmuadin, wuxuu dhahaya ka daba dhah, allahu akbar allahu akbar, markuu dhahdo allahu akbar allahu ka daba dhah, intuu dhahayoon adiguna ka daba dhah. ayib, haddana igu saliya oo rasuulka ha lagu saliyo, kadib ii weydiiya allah alwasiila. wuxuu yihi waa manzila ama daraja oo jannada ku jirta oo aan u habboonayn ilaa qof unbay u habboon tahay oo addoomihiisa ka mid ah. waxaana rajaynayaa inaan anigu noqdo qofka ii weydiiya darajada iyada aniga. xallat lahu ashafaaca, ay shafaacatii, ayaa qofkaas iyada yuu helayaa. ergada rasuulka ka mid buu noqon. allahuma rabba hadihi dacwati attaama wasalaati alqaa'ima aati muxamada alwasiilata walfadiila wabcathu maqaama maxmuuda aladii wacadtah. yani taas lagu sheegay ducadaa la aqriyo weeye markii aadaanku dhammaado ee rasuulka in loogu duceeyo. adiguna faa'iidada aada helayso waa inaad noqoto dadkaas ilaahay subxaanahu watacaala shafaacada rasuulka iyo ergadiisa maalinta ku guuleysta. allah inagu guuleeyo. wajazaakum allahu khayr.